afiga nin ma jirteena ay niyo hadal ba iga xirmaniyo waxaan ilaa caawo ka sida way ku dhacday sida aad quriga ku dhacday aad Soomaali Maxamed ay waad aragtaan waxa meesha ka dhacaya waad aragtaan kii ugu weynaa ee geela faaska lugta kala dhici jiray odax baan tooray hadal jilicsanadu wax kaga dhigay waraa futadaadii 21000 la kala siistay baltog yaa imanaysanay caaw xageed iga dhuuman aniga jeelogaadeen baan taas ku hayaa futadaadaan anigu adeer baal flash light saa ugu hayaa cid iga ka celina ma jirtade cadaadkan dhan waxa la dhigaysaan waxa aad la qaliyeysaan waxaad bajaada la haysaan waxaad cir iyo dhulba la qaban laadihiin waa qurquraye maxaan idin idhi Soomaali Maxamedi anu mar kasta on club house intaan imaado aan may qaadanayo waxba la iga qoraa waxa la iga qorayo marka maanta muxuu yahay inta aan hadlayo rag ogaadeenaa meesha saaran kalsooni ay iga qabaan ay og yihiin laandheera dhalay oo baarka sare ka dhashay daarood waliba Soomaali yaa la igu qiimeynaya halka intaan soo fadhiisto ilmaadeerada way raaxaysanayaan dhooshay ka wada qoslayaan iyaguna sida dumarka war wuxuu sameeyay waxaan dumar baan maalin walba intaan rag moodnay aan rabnaa inaan mayg la qaadano ninku sideeda waxa fiican markuu golo soo fadhiisto inuu isagoo caadi ah oo kaftami kara oo inaadeerkii ku kalsoon oo uu wuxuu dhihi kareeto iyo wuxuu dadka ku dhahayo ku qancaya inuu dhaho war inaad rumayga qaado waad aragtaan laban kala nahay rag kalsooni leh iyo dumar iska garab alaalaasaya adeer dacweynii baan idin xidhay adeer waan qayilaya waliba hadda jabana bilaabay dacweyne intaan idin xidhaga saa ay hormaraysan muxuu yiri marka adduunyada ninkaan dhimanin ee dhaxal lagu daayo waagi soo dhalaalaba waxuu dhab u bilkeeyay dhacdo uguba waa kii arkiya dhabanahayskeeda aadamiga dhulkan loo goglay dhooban guradiisa dahab dhiifsankii loo dhigay dharafta loo buuxsho dhaadanaanta kuma jooga iyo dharagu haystaaye dhitada u been sheegtay iyo dhilka xoorta leh isma dhaho dhigaaba ku celin kaana dhoorulane dhasalaaluq buu ula tagaa wiil ka dhumuc weyn waan ku raaxaysanayaa anigu maanta wariyaa 3 jeer baa laga dhigay war gabdhaha ka fogow hadda markaad soo noqoto marka maxaad waxba la gabadh baa la foolay gabadh baa kan ayaad ka sheekeen miyaa marka ileen xigmad idinkuma jirtee 17 jeer baad ku soo noqotay waliba darwiishu ka qaleeyay hal mar gabadh afkayga ma soo saarin wariyaa waa inuu ninka raggu markuu goobaha ka kaftamayo inuu isagoo balaaqale oo wuxuu awoogi siiyay oo la soo fadhiisto hal wax baad leedahay ku waa ay haddaad rabtay anu meeshan ma soo fadhiisteeniyo rag kula caytami way jiraan oo kula dhigdhig oo meel fiican gacanta kula gelinayo masquul baatay masquushaad ku jirto rag gacanta kula gelin baa jira fahmaysaa si toos laakiin anigu laandheeruhu dhalay ee xaaje qaataan ahayniyo wiil aan qabtay oon cabaadin oo talaayay mandheeray dhihina waa la waayay mandheer dhashay magacaana uu baxay maanta ma fahmaysaa si toos mandheerta ma jeerteen aad iyo aad dhitada u been sheegtay iyo dhilka xoorta leh isma dhaha dhigaaba ku celin kaana dhoorulane dhasalaaluq buu ula tagaa wiil ka dhumuc weyne dhangad bulad le baa lala dhacaa dhamas xanuun weyne waa wax hadda idinku hayo laba xabaan saa idinku dhufan 10 daqiiqo cabeedkiini baa la isugu tagay odax baan tooray ajadaan tooray kareem baan tooray barafuun baan bis ka siiyay qarmuun dhalay qolku hadda waa xidhan yahay mask baan xidhanayo qarmuunkiina dartiin 7 jirka uraya ee futadiisa isagoo la daba taagan yahay aramacada 21000 kaan qaranka ka bixnay aniga odax baan tooray futadaada maduba xutuurti wuxuu yiri dhangad bulaalada baa lala dhacaa dhamas xanuun weyn ee dharaarahantaan aragnay waa dhigantideedii dhankooda baanuun eegin on dhuganin jaahooda dhambaal cay ah dhooda af xumaha dhur iyo waaqay ah lagu dhahay dhaleecay ku taal dhaadashana raacdo kuwa maanta soo dhiibay ee igula soo dhiirtay waa dhalaankii hooyadii dhashay aaba dheel baray sugaanta markaad hodanka ka ahayn inaad radhib ku qabsanayso
cabaad baad la soo fadhiisanaysaa inaad gabdho dumar oo sharfan iyo balaayo aad ka dhacdo iyo banaf baad aadaysaa niyo hadda maan idin ogaa gabaygan hadda ma ah maan idin ogaa anugu naclatullah caleyk meeshan cay loogama baahna rag waaweyn baa fadhiya sugaan dhaariya waxa aan leeyahay xigmadda way arkaan waa la ina qiimeynayaa ilalaas loogama baahna aroos ma joogno ma fahmaysaan muud gala dhalaaca ku taal dhaadashana raacda kuwa maanta soo dhiibay igula soo dhiirtay waa dhallaankii hooyadii dhashiya aabba dheel baraye dhurdihii shinnida dhaafi siiray malab dhitayntiisa oo dhigaalkii kaydkii u dhuray dhub ka badan waaye wax ka dhigan dhankii loo dayaba dhimir xumaantooda kuwa gabayga soo dhiibay ee dhumucda xooggayga dhudhumo lamaan igu xantiyo cudud la ii dhaliyey waa markaad dhalfada aad lahaydeen ogaadeen dhalfadiisa weyn naaga dhowr qaday hal dhex dhiga naaga dhowr qaday waa waxana hadda meesha ku haysaan annagu waxaa kama kaftananiyo sheeka haweenta ma naqaananiyo naa runta idiin sheegaya jilicsan yaa jilicsanta dhasha baar sare ninkaan ka dhalan baahi war iska daaya masaakiintan caawa anaa ku jimicsanaya iskaga aamusa nimaya ya dhudhumada lamaan igu xanti iyo cududa la ii dhaliyey qof dhammays ihi xubin dhuuban ma lehe dhicisna ma ihiye korse haddii dhabbihii maansada gacanta aan saaray laga rogay dhadhaabtaan ku xidhay furantadii wuxuu yidhi furantay dheeshiye ninka hadalka soo dhoofiyo gabaygaad soo dhiibtay wuxuu yidhi dhito subaga dhayliya karuur dhuuni ugu fiican ama xabag dhunkaal iyo mariid dhooban oo halisa labadaa midku ku dhalaad dabaqsan doontaaye dhaxalkii jawaabtaada hoo dhaqanyadood maasho dhaxalkii jawaabtaada hoo oo dhaqanyadeed maal naclatullah caleyk 70 mara yaa ilmo badhiyo weyn baryo banaf badhiyo bilaacad yaa ilma dad aan sharaf lahayn yaa ilma ma garanaysaaye soomaali ku bahdilan yaa ilma caytamay naclatullah caleyk yaa ilma midgiyo ururis abwaanku soo kii jigjiga geelanaga buriska la daba taagnaa ma ee howlqaas waxay kuleeyihiin dhaxalkii jawaabtaada hooy dhaqayadeed maasho wardheega aadan waxaa loo dhambalay oo dhadiga loo uumay ha dhaleen dad weeyiya inaan lagu dhuroobaye wuxuu yidhi dhabbada haddaan loo askumin dumar dhammaantiiba dhalfa dhararsan oo lala dhaco dhumuucle mooyaane dhuuni kale afaan looba qorin laguma dhaabeene dhuuntiisa shay kale ma maro uu dhadhamiyaaye haddii aan u dhiibnana ilaan waa wax loo dhigaye ya balday afka suugaanta xitaa ma bari yaqaanaan waxse dhaygaga aadmiga ku riday taad ku dhaqantaane haddaad idinku dhabarka u godaan dhigasho xaalkeede dhawaaquna masiirka iyahoo dhalfada weyn dooni dhankaa kama naqaanee ugee kii ku baray dheesha naclatullah caleyk ogaadanow laba deji hal soo qaad ciyaara baar sare ninkaan ka dhalan baahi baa dilaysanayo waryaa gabay walba oo aan leenahay anoo haaf maraya iyo 10 daqiiqa dhacaysaa dee fahmaysaa wuxuu yidhi dhalfada wuxuu yidhi dhawaaquna masiirka iyo dalfada weyn dooni dhanka kama naqaanay ugee kii ku baray dheesha dhidhiibsa isagaa ku odhan kuguna dhaantayne dhadig iyo labood baa tihiin wax u dhexeeyaaye dhalfadii daboolayn markuu ku dhilqiya gaalko adigu dheehu kaa duulay baad dhiirin socotaaye ha yeeshee wax dhacay baa jiro dhibi ka joogtaaye ummad dhacantay baa muuqatoon oon dhura u laabnayne haddaad idinku wada dhuuqsateen naaga dhexidhkood wuxuu yidhi haddaad idinku wada dhuuqsateen naaga dhexidhkood dhabahoodii idinkaa maro oo dhaclihii qaba dhadiguna dhinacay u kici waaba dhaxasheene waa su-aal taagan marka haddaad idinku dhalfi iyo waxbaan iyo waxaan aad ka sheekaysaan ood ragga bahalkooda ka hadashaan dumarku xaggee aadi marka maxay ka hadli marka dumarku su-aashaa ka soo jawaaba dhabahoodii idinkaa maro oo dhaclihii qaba dhadigiinu dhinay u kici waaba dhaxasheene afartaa dhakada ma uga riday dhabayaclow kuusan dhamac kulol qalbiga ma uga rogay dhuxulo naaroobay dharbaaxooyinkaan aqiin dhow ma kaga siiyey hadda micida kuma dhuujin oo waan ka dhimayahay dhawaaq kale markay soo ceshaantaan ku dhigi doono dhabanada haddii aynan qaban dhagaxyadan saaro alaylahay dhigood baan ahiyo dhabayaclow kuusan naclatullah
عليك يا يا بري وين دشي ونيو مر هدادا saa u baanaynin mar haddaada eraygii xitaa idinka soo baxay isagoo gabay ah qofka eraygii ka soo baxay isagoo gabay inaan soo qaadan karin oo ma garanaysaa inaan saa ugu xarakeyn karin oo ma garanaysaa saa inaan wax u wadi karin inaad radee hadal ma jeedheen buu noqonayaa hadal mandheerle yuu noqonayaa anaa runta idiin sheegi halkaasoo soo baxaysaan wiilkaa yarka ah ee afgaroocu dhalay een boqoojiyey een jiqil iyo barhka siiyey arma soo noqonaye haddaad usii daynayso inu sii daaya hadal igama dhaman war la kala hadlo markaad soo fadhiisato waa inaad naxwe iyo murti aad ku hadli karta niyo laakiin haddaad dhahdo waan iska dhadhawaaqi waan iska buuqbuuqi waxaa adeer meesha ma taalo niyaho ninku kalsooni baa fiican marka uu meel gola ah imanayo oo rag maqaawiira ay isku arkayaan inuu intuu wax la yimaado uu wixiisa halkaa intuu ku sheegto uu horey u socod yeeshaa loo baahan yahay laakiin halkaa beryo waaweyn oo qarno intii lasoo wada dhigo haad dhaag xaara dhex yaallo in halkan bajaa laga hayo adeer wax micnaha ma samaynaysa dee anigu marka aan soo fadhiisto adeer cabaad baa bilowda bajaa baa bilaabata qaylaa bilaabata tallaayey baa bilaabata garbasaaraha tuuraay baa bilaabata maxaa lahaa marka waxaan kaa maqlayay maxaad lahayd gabay maad leedahay kan maad leedahay waryaahay ninkii kilaab hoos idinkaga saaray anigu gabay baan ahaaniyo baadhidii ma jeerteen soo banafi mayso bilaacad sideedii soo u burqani mayso biyo lagu shubiyo soo qurquriye baaldi lama daba joogo wawareey waa ku darsatay halkaadhi meega qabatay aad iyo aad waa kaa dhacday ma maqlaysaa darwiishow ku maqlaya inaad ergacaliyo miskiinka xunka wuxuu yidhaahday meesha ma jidho waa iska fadhiyaa waxaa islaahay dee qofku markuu doqon yahay waxyaala lagu garan kara waxaa ka mid ah maanta o dhan kama dhammaanayo ma garanaysaa marka niyow adeer may ku sheego may kaa dhamaatee may ku sheego aclatullah habdi ha soo horiyada soo horso ninkaasaan la hadlayaa moodgalniyo inaad qofkan horta wuxuu sheegtay